xilliyada ugu wanaagsan waxaa waaye badda markay furan tahay oo wax iqabad ay leedahay oo malaaya oo socdo aa la galaa badda. hadda waxaa lagu jiraa bad xiran mafahanti, dabeelaa jirto, badda waxay kacdaa dabeesha markay imaado mafahanti. hadda malaay la-aanaa jirto kawaanka ebel markay dabeesha yartahay malaayiga zaa'id u imaadaa, jeelarka yumbiga kulli oo soo baxaa mafahanti. laakiin hadda bad dabeelaa ku jirto kiilo malaay $6 la gadoyaa, waxaa la gedi jira $2. qalabka hadda oo la isticmaalo waxaa ugu weyn makaalin, jalaab, baroosiin. fiilada waxaa la geliyaa malaayaa la tuuraa, kadib waa malaay aluu raadiyaa, marna woo goostaa marna woo cunaa, markuu cuno galaa shabaqa. waxaa la baxaa subaxda aroortii ilaa dadna habeenkii baxaan, dadna subaxdii baxaan. dadka habeenka baxaa waxaa waaye dad safar aadaa waaya, safaray aadaan markac iyo dhulkaas iyo dheeraadkay aadaan. badda waa iska barwaaqaysantaa, waa badan tahay intii badda ku jirto ma tiri koobna. inta hadda maslaxa mar ku nool camalaa ku jirto badda mafahanti. yumbi aa ku jiro, jeelar aa ku jiro, tartaba ku jirto, khashaar aa ku jiro, yumbi waxaa ku jiro macalla saafid, waxaa ku jiro dhuuwaani, wax badan aa ku jiro badda. Soomaalidu waxay kala go'an tahay mi iyo magaalo. xoolaha iyagu sida magaalada kale ma waa la raraa, meel naqal ah loo dhigaa. markii jiidaala biyaha la siiyo ceela laga shubaa, waxa lagu shubaa dalow yaa la isku xirayaa iyo xarig waa ceesha lagu shubaa. midda kale ritiga awrka oo nadiga ahayn, ritiba dadku waa yaqaanaa. ritiga oo kale meesha dheer biyaha keeni kara waxaase loo guuri jiray. alcunisa dalaga beeraha anagu dekada ma ana lahay, mar dhawaa noogu horreysay. Soomaali beerahay cuni jirtay, beerahaas wixii ka soo go'o dalaga ala cuni jiray. hooyooyinkuna hadda waa aqooli jireen, aqool waa taqaanaan. dadkan magaalo iyo miyi labada aqoosh waa weligii hooya haysa. sida waxa la dubo oo badar la dubo oo la kariyo oo la dubo, mid diirkiisa lagu kariyo. Soomaalida dhaqan u ahaa, caanaha lagu daray jiray. geela heese loo qaado waa jira dadka taariikhda lahaa oo aqliga leh. anaga weynaa markay hasha lisayaan heese u qaadi jireen. ubadkii u soo bixi jireen, nirigtay ku sii dayi jireen. mid waa salaaxi jireen oo markaasi godla jirta iyadoo nirigiina ka xereed uga jiro. dadkii geelu waxyaalo badan baa lagu maalaa. toobte geed la yidhaahdo waa lagu maalaa. toobtahaas baa hasha 2 nin baa lista. looda iyo ariga la mid maase waa gob, waa ka weyn. sida loodoo kale waa jiraan waxa la dhiil baa lagu lisaa. dhiisha waa lagu lisaa. martida caanaheeda inta habar la saar markii lagu soo lisaa xorta martida loogu geeyaa. ariga harub baa lagu lisaa. harub bay leedahay, dhiishu iska leedahay. markii uu la gambiyo harub baa lagu soo lisaa. dumarka iska liskiisa iska rag shaqo kuma leh. looda ka lisaan rag adi karaan. arig loodu labay qadaa. waxaa la Soomaalida ku maamaadaa kollaa ninkan inta kiisa haysta inuu qanti waxay maamayaas ka keenayaa in qantinkiisa isagoo adkayn oo nugushaay in la imaanay iska loo ninkan kalkiisa kala haysta la yiraahdaa. laba qad baa looda ugu badan. ariga waa 5 oo kale markuu sanaq joogin jiidaal ay tahay 5 uu qadaa. geelu Soomaalida ku maamada waxa hal bil qada bari kuma darawid asagoo hadduu 30 qado, hadduu 10 qado, hadduu 20 qado biyo ma dhinto. waxa lagu kala leeyahay riti iyo hal. waa riti iyo hal markuu kooban yahay. haddana waxa la leeyahay gurbac, waa gurbac mid ka shanuuga iyo nirig. waa wad marka la xareeyo oo xirada lagu xareeyo. gurbac iyo waxa la kala yiraahdaa iyo nirig waa midka dhadiga. gurbac waa ritiga artiga weyn halkan gaar hasha maartay unuuga ama ka go'ay oo wadka la xareeyo, xirada lagu xareeyo. waxa la kala nirig iyo waxa la kala gurbac la kala yiraahdaa. nirigtu waa geelu dhulka u kala sibxaa. waa hal irmaan baa la yiraahdaa. waa geel caanaha laga wadkaas loo lisaa. mid waa horweyn baa la yiraahdaa. duurku aadaa waa geel xoog galaho. waa taqaanaan meelaha marmarahay magaalada marmarahay waa taqaan. booqashada maanta soo boqotay degmada Afgoye. beeraha waxay u kala baxaan haddeertaan deegaankan 2. beerado qaarna waa roob baa lagu tacbadaa, qaarna webiga lagu tacbadaa. labadaas beeraan haynaa oo lagu tacbado. marka qaar roobkay sugayaan xiriga roobka u doo ama gu ama deer labadaas ay tacbanayaan. qaarka oo webiga sugayaan, webiga doo buuxo way waraabsanaa doo maqan yahay ayaga markaas way sugayaan webiga. labadaas
agabka loo isticmaalo waraabka beeraha, yani beeraha markii loo fiirinayo waraabka way kala duwan yihiin. annaga hadda waxaan isticmaalnaa hal nooc oo ah noocaas oo ah inaan waraabino, inaan kanaala u sameyno oo loo yaqaano faro system loo yaqaano. kanaalkaas loo sameeyo wabigii matoor in la saaro oo biyihii kanaalka lagu soo shubo, kadib kanaalkii beerta markuu yimaado beertii farar loo sameeyo, farahaas lagu waraabiyo hadda isticmaalnaa inta badan. laakiin adduunka waa la horumaray oo waxaa la isticmaalaa dhowr waraab. waxaa jira bahal spring water la yiraahdo oo irrigation la yiraahdo oo biyaha beerta kor ka waraabinaya jirto oo sameynayo. qaar waxaa jira drip irrigation la yiraahdo oo tubooyin inta dhulka la dhigo lagu waraabinaya jirto. laakiin annagu maanan gaarin wali waa wadanka uu ku yaryahay kaas lama sameyn. laakiin hadda inta badan waxaa lagu isticmaalo waxay tahay waa faro irrigation kaasi in farar loo sameeyo biyaha oo beerta lagu waraabiyo. dhirta waxaa ka mid ah hadda Soomaaliya markii la joogo xilliyada gu'ga oo kale Soomaalida ma tacbato sisinta iyo masagada oo kale ma tacbato, inkastoo beeraha qaar oo sida meelaha xagaaga aysan gaarin. yani Soomaaliya markii la joogo waxaa jira gobolo ama deegaan waxaa jira xagaaga uusan ka diinaa jirto, marka kuwaas way tacban karaan caadi u tacbadaan. laakiin hadda deegaan annaga aan joogno Afgoy oo kale waxaa lagu tacbaa inta badan masagada oo kale lama tacbo xilliga gu'ga, lama tacbo sisinta oo kale xilliga gu'ga lama tacbo, iyadoo loo fiirinayo roobkaasi badan da'ayo. sisinta uu ku dheelaa sisinta markii ay bislaato waxay rabtaa in la siibo, waxay rabtaa in la tubo, waxay rabtaa in shabisa loo yaqaana in la shabiyo u baahan tahay. marka haddii roob ugu da'ayo waxay u baahan tahay qorax inay hesho u baahan tahay. haddii roob ugu da'ayo marka waxaa laga yaabaa sisintii maantana aad beeratay oo intaan soo tacbaysay xilliga oo tubka ay ku jirto in roob ugu da'o ay dhalato, marka saameyn ku yeelan sidaad lama beerto. maadaama shukulaadkii wixii laga soo guuray dhulkii la qoday laga soo guuray, dadku waxay u bedeshaa markiina ay ku shubaan fuustooyin caaga balaastig ah kuwa oo jiingada ku samaysan, jiirgaamadan oo 20 lah in lagu shubo lagu keedsado hadhow markii loo baahan in la gato. dalaga la beero noocyadiisa waxay ku xiran tahay waxaad beeranayso, ayay ku xiran tahay. tusaale ahaan haddaad galey beeranayso, haddaad misig beeranayso, haddaad digir beeranayso, haddii aad qudaarta kale beeranayso, waxay ku xiran tahay markaas ay ku xiran tahay. sidaa daraaddeed hadda galey beeranayso oo kale waxay raado qaabka loo beero amba labada geed inta loo dhexaysiiyo way kala fog tahay. soo kale haddaad misiga beeranayso way isku dhowdahay, yani beeritaankeedii qaabkaa loo beeraa. markii digir la beeraa oo kale 2 mitir kadib aba mid kale lagu beeraa, yani space dheer la sameeyaa maadaama dhulka ay saaqayso iyo qaraha oo kale ka mid tahay. yaanyada oo kale waxaa loo sameeyaa isna qaabkaa loo beeraa gooniya, qudaarta gooniya loo beeraa sida geedaha. marka waxay ku xiran tahay marka waxaad beeranayso ku xiran tahay iyo qaabkaad u beerayso iyo deegaankaasi waxaa lagu yaqaanaa qaabka loo beertay ka mid tahay. iibgeynta waxay ku xiran tahay markasta magaala la geeyo, tuulooyinkii iyo beerihii markii laga soo qaado amba ay soo bislaadaan waxaa la geeyaa magaalooyin. markii la geenayana iibgeynta laba u fiirnayna marna waa transportationka amba qaabka loo qaado amba loo geeyo beeraha suuqa loo geeyo. dadna waxay isticmaalaan gaari dameer inay ku qaadaan, dad waxay isticmaalaan dhabarkooda inay ku qaataan. waagii hore dhabar lagu qaadi jiray iyo dameeraha dushooda lagu qaadi jiray, laakiin gaari dameer lagu qaadaa. hadeertan waxaa lagu qaadaa baabuur iyo mootooyin lagu qaadaa. beeraha markii la beeraa qalab badan la adeegsadaa. annagu hadda adduunka waa horumaray oo wax badan la sameeyaa, laakiin annaga waxaan isticmaalnaa yaambooyin. dhulka markii la diyaarinayo waxaan ku diyaarinaa yaambooyin, waxaan ku diyaarinaa makiin beerfal yiraahdo. makiinda beerfalka marka waxay ka mid tahay waxyaabaha na soo gaaray waqti dambe na soo gaaray. waagii hore yaambooyinka gacmaha iyo wax lagu diyaarin jiray, makiinda booskeeda uu guro 1 bil 15 maalin oo maqnaan jiray weligiis. markii uu baato 2 bil oo gaari jiray, laakiin mar wuxuu maqnaa 7 bilood. wuxuu baxay umaleynaa November December bilowgeeda u baxay, December ilaa April oo maqnaa. April markay dhamaatay maalinta ciida meelahaas oo soonfurka u yimid, haddana 29 maalin loo joogay weliga oo socday, kadib biyihii way gureen. marka wax sababay iyo wax keenay waa factor ugu weyn ama saameynta ugu badan maanta beeraleyda heestay ka mid tahay. soo dhawo insha Allah degmada Afgoy ku soo dhawo jaamacadda Afgoy iyo beerteeda aan joogno maanta practical u joognay ku soo dhawaada insha Allah taala. markasta diyaar inaan insha Allah